afka Soomaaligu waxa uu ka mid yahay afafka ugu hodansan marka la barbar dhigo luqadaha kale ee lagaga hadlo dunida balse Soomaalida dhexdeeda marka laga hadlayo waxbarashada heerka jaamacadaha waa in kooban inta ardaygu wax ku barto dhiganayaal ku qoran afka hooyo Kawsar Ibrahim Xuseen oo ah ardayad dhigata kulliyadda Social Science ee jaamacadda Burco ayaa soo kordhisay dhigana ardayga u sahlaya inuu afka hooyo ku barto maadada xisaabaadka ee jaamacadda munaasabad ballaaran ayay ku soo bandhigtay dhiganahan oo ku qoran afka Soomaaliga waxaana bogaadiyay mas'uuliyiin ka socda dawladda hoose ee degmada Burco barayaal wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo mas'uuliyiin kale Kawsar waynu uga mahad celinaynaa inaynu buuggan ay soo saartay inaguna waxa inoo taala inaynu buuggan daabacaadiisa ugu horeysa aynu noqono consumeriska qaata ee isticmaala jahliga iyo mugdiga ka saara markaas jaamacaduna waa goobahaas waxbarashada sameeya marka labaad waxaan bogaadinayaa ardayda Kawsar ee buuggan qortay u bedeshay afka Soomaaliga oo ay dad badani ka faa'iideysan karaan aad baan ugu hambalyeeyaa Kawsar inay qalin iyo waraaq inta qaatay ama laptop ay fadhiisatay ay aqoonteedii express karaysay oo ay qoraan u bedeshay wax invitation card baa leeyahay waxa la yiraahdaa inaan baa buug soo diyaarsay Kawsar baa magaceeda leeyahay habeenkaas jaamacadda ka dhacaysa salaasada soo galso niman dhalinyaro baa ay keenay wallahi waxa siiyay culays kaara caawa salaadii cishaay maan tukar markay nimadu igu soo dhufteen waxaan inanta buuga iyo hawsheeda sinaba caawa uga maqnaan weynadu tagtaa oo inanta aad soo baarigtaa oo aad soo hambaleysa soo dhiirigelisa Kawsar Ibrahim Xasan oo ah qoraaga dhiganahani oo telefishinka Sahan la hadashay markii ay munaasabadu soo idlaatay ayaa ka warbixisay waxyaabihii ku kalifay in ay qorto buuggani iyo caqabadihii kala duwanaa ee soo wajahay muddadii ay waday qoridda buuggan buuggan waxaan sababihii ugu kalifay oo ah aqoonta baahida bulshadu u qabto aqoontan oo aan hore loogu daahfurin ama Soomaali aan loogu turjumin taas waa sababtii koowaad ee ugu kaliftay waxaan ugu talagalay buuggan in ardaydu self study ay kaligood u caawiso aan u baahnayn macallin iyo cid kale oo caawiso toona taas waa sababihii kalifay kana maarmi karo ardaygu inay cid kale caawiso oo goobtiisa shaqo goobtiisa ganacsi sidoo kale goobtiisa waxbarasho mar walba ku isticmaali karo waqti kasta oo chance u helo buuggan wuxuu kaga duwan yahay buugaagta kale waxa uu u qoran yahay nidaam ka duwan buugaagtii hore nidaamku uu qoran yahay waa buuggii qaybtiisa Ingiriiska iyo qaybtiisa Soomaaligu way soo staalaan nidaamkan wuxuu u fududeynayaa ardayga inaanu chapterkii isla doonan iyo Soomaaligii macnaheedu markuu helay taasi waxay u fududeynaysaa ardaygii inuu si tartiiba meeshii uu garan waayo Ingiriisku garan waayo oo Soomaaligeeda xagga hoose ka eego qof kasta wuxuu igu dhiirigelin jiray inaan hore u wado oo aanan joojinin caqabado yar baa iga hor yimi oo ahaa nidaamka buuggan iyo terminology oo aan waqti badan geliyay si aan u heli lahaa maadaama buuggu ka duwan yahay buugaagta terminology ku qoranna uu ka duwan yahay buugaagta taas waxay ka dhiftay caqabadaha yarna insha Allah waan ka soo gudbay Shucayb Xasan Dheere telefishinka Sahan magaalada Burco